Gudiga gurmadka ee Puntland ayaa maanta la gaarsiiyay deeq xoolo ah iyadoo gudigaasi maanta ay gaarsiiyeen deeqdaasi dad iyagu ku dhaqan qurba joogta gaar ahaan dalkaasi Mareykanka oo iska soo ururiyeen deeqdaasi kuwaas oo loogu talagalay in lagu baxnaaniyo dadka ay afayeen duufaantii ku dhufatay deegaano ka tirsan maamulka Puntland. Wariyaheenna magaalada Garowe ayaa faahfaahinta warkan halkaasi nooga soo diray. munaasibadan ay xoolaha culimadu kala wareegayeen hay'adda la yiraahdo Red Horn of Africa ee fadhigeedu tahay Mareykanka ayaa lagu qabtay meel wax yar u jirta kontaroolka koonfureed ee magaalada Garowe waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi culimo isumo wasiiro iyo mas'uuliyiin kale. ugu horeyn mas'uul hadlayay hay'adda Red Horn of Africa ayaa sheegay in dhaqaalaha xoolahan lagu soo iibiyay inay iska soo ururiyeen shacabka Minnesota ayna ugu talagaleen in la gaarsiiyo qoysaskii cayrta ku noqday duufaantii dhawaan ku dhufatay deegaano ka tirsan gobolada Puntland. waxa uu mas'uulkaasi sheegay xoolaha ay soo iibiyeen inay gaarayaan 897 neef oo ari ah inaan ku wareejino sida aad ku aragtaan boorarkan gadaashayda ah community-ga iska kaashaday in ay deeq gaarsiiyaan walaalahooda ay roobabkii iyo dabaylihii ay waxyeeleeyeen oo gobolada Nugaal Karkaar iyo Bari oo ugu deeqay ari dhan 890 iyo 7 neef. sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Puntland General Cabdilaahi Axmed Jaamac Ilkajiir oo ku hadlay afka gudiga gurmadka degdega ee dawladda ayaa sheegay in hay'adda iyo dadkii deeqdan soo dhiibay ay uga mahad celinayaan sida wanaagsan ay u soo caawiyeen walaalahooda tabaalaysan. waxa uu sheegay inay weli dhankooda ku hawlan yihiin sidii qorshaha xoolaynta guud loo gaarsiin lahaa dhammaan dadkii ku waxyeeloobay duufaantii ku dhufatay deegaanada Puntland. in dhibaatooyinka hadii la isaga gargaaro saasoo kale la yeelo wax badan baa inoo suurtay wax badan oo qabsan karaa. hore waxa loo qaybiyay ilaa 16 neef oo xoolo ah 10 kale waa la saaray halkan waa baraka soo kordhay welina way soo gurmayaan dadka muxsiniinta ee dibadda jooga iyo kuwa dalka gudihiisa jooga aan u kala harin. waxa weeye وجهة النظر عاد وصبوا عاد قرح بدن معها وأباهن إن لجود يفيدوا أباهن إن لجود ضيلوا وحن ربنا إن عادي عاد وجمع هالأليو لبدو كميونتي معها من صوتها يسين كلاود وأي كتمي أرنتر كسوة شيدو إيو ريد ويدو أي أصو وكيشان إن أي معها هوشاس أي فلسون لسوق دارسيسو وحنا عادي عاد وجمع واحد علمية قبل كمودو ونهانتي أهانا قبل كجرجار كوجوري سوق دارسية مركز دعان أي واحد دعان. gudoomiyaha gudiga culimada ee taakulaynta dadka tabaalaysan Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf ayaa sheegay inay sidii loogu talagalay xoolahan loogu qaybin doono dadkii cayroobay wuxuuna sheegay xilliga la qaybinayo inay tahay 15 bisha Janaayo inta ka horeysana la isku sii aadin doono deeqaha culimadani la soo gaarsiiyay. waxaan iyagana si gaar ah saaka ugu mahad celinaynaa hay'adda Red Horn of Africa oo sida hadda wasiirku sheegay gudigii ee taakulaynta dadka dhibaatadu gaadhay oo dawladda iyo culimada isugu jiray inay saaka hay'addaasi ay ku wareejisay arigaas tiradiisa la sheegay oo ilaa 900 neef ku dhow. aad iyo aad baan hay'adda ugu mahad celinaynaa hay'adda Red Horn of Africa iyo guud ahaan goboladii Mareykanka oo lacagtii ariga lagu gaday laga soo ururiyay iyo dadkii Soomaalida ah ay soo ururiyay dhamaantiin waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin. arigaas oo naloo sheegay 70% inuu yahay ari riman inta kalena ari hadda rimaya inuu yahay. garaad Maxamed Cilmi Shirwac oo isagu ku hadlaya afka ismada Puntland ayaa dhankiisa soo dhaweeyay xoolaha kunka u dhow ee qoysaskan tabaalaysan loogu deeqay. bogaadinayna u mahad celinayna deeqdan hay'adihii ka qayb qaatay hadday maxalli yihiin iyo hadday kuwa caalami yihiinba iyo dawladda Puntland
haatan gobolka Nugaal waxaa ka socda soo ururinta xoolo gaaraya 10,000 oo neef oo horay Suldaan Siciid Maxamed Garaase u gooyay in dadka degan gobolka laga soo ururiyo. Cabdirasaaq Maxamed Xayir, Kalsan TV, Garowe.